السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن أصحابي ميل كستود naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah qisooyinka cajiibka waanu kusoo gudbinayno channelkeena qisooyinka Nadaara 2. haddaba qisadan waa qiso runtii aad cajiib u ah. waa qiso wax badan laga ogaan karo oo laga baran karo. haddaba qisada magaceeda waxa la yiraahdaa لا تتكلم هايسكو هادلين أفكاغا حرو. قصة waxay ka dhacday dalka Cumaan waxaana la sheegay inay dhacday sanadkii 2001. qisa cajiiba oo runtii marka aad dhageysato wax badan aad kala bixi karto oo muhiim ah ayay noqon doontaa. haddaba marka qisadan waxay ku bilaabanaysaa nin oday ah ayaa wuxuu dhalay wiil la yiraahdo Naif oo 24 jira iyo wiil kale oo la yiraahdo Nawaaf. marka Naif iyo Nawaaf alkaleeda 24 jir iyo 19 jir. asaga iyo xaaskiisa iyo labadiisa wiil ayaa ku nool meel tuura ah oo runtii magaalada aan wax badan u jirin. waxay haysteen marka guryo iyo beero iyo dhulkaasi haysteen. dad iska ladan ahayn. magaalada ku dhow waxay leedahay iskuul, jaamacado, wax kasta. dadka way u sahlan tahay, waxbay bartaan, way shaqaystaan, beeraley waaye, nolol fiican ay ku noolyihiin. gurigooda marka waxaa u dhow masaajid weyn isaga iyo labadiisa wiil ay ku dukadaan mar walba. labada wiil uu dhalay waa laba wiil oo edeble, waa laba wiil oo maaragtay akhlaaqdoodu wanaagsan tahay, salaada masaajidka ku xiran, maaragtay wax barta, shaqaysta. marka laba wiil oo nadiif ah oo fiican u leeyahay. laakiin Abu Naif waxay daris yihiin nin dowladda u shaqeeya oo kibir ku haysta eriyada dhan. wiilal wuxuu dhalay afarta wiil waa kuwa xun, darooga isticmaala, qashin isticmaala, dhibaato ku haya dadka deegaanka. Abu Naif marka isagu waa nin akhyaar ah, waa nin ahludiin ah, waa nin shaqaysta, wiilashiisana akhlaaq wanaagsan ku barbaari. mar walba wuxuu uga digi jiray kuwa kan alkoolistayaasha ah ee daroogada isticmaala ee Ilaahay uu dariska kala dhigay inay ka fogaadaan. dhaqankaas xun inaysan u dhawaanin. mar walba dardaaranka Abu Naif ayuu ah. wiilasha iyaguna way dareensanaayeen nolosha ay kuwa kan ku nool yihiin inay tahay nolol aan wanaagsanayn, dad nolosha ka dhacay inay yihiin, xaafadana dhibaato badan ay ku hayaan. waxa ugu badan ee dadku ay markaa looga cabanayaan ay tahay aabahood oo dowladda u shaqeeyo kaaba ka ah meesha. macnaha booliisku wax badan kama qaadi karaan, adiga waa nooc min aabahay ayaa dowladda ku jira ama xildhibaan ama taliya booliisa, marka yaa wax iga qaadi karo kale waxyaabo noocaas oo ay carabtu way yaqaanaan. waxaas dadka deegaanku marka way yaqaanaan. dhibaatay marka deegaanku hayaan lagu dacweeyana mala iyagii aabahoodii dowladii ah. dhibkaasaa marka dadka deegaankaas. maalin maalmaha ka mid wiilka weyn ee Naif isagoo masaajidka u soo socda, habeen ay tahay cishaha inuu aado raba, ayuu masaajidka meel u dhow wuxuu ka maqlay qaylo. yaa muslimiin iisoo gurmaday, warnikaan iga qabtay, waa wareey, meesha qaylaa ka socota. Naif wuu ku leexday. wuxuu arkay nin wadamadan Aasiya ka yimid, Hindiya, Bakistaan, Bangladesh, Aasawiyiin ay yidhahdaan. nin Aasawi ah oo meesha lagu garaacay. ninka garaacay waxaa la yidhahdaa Rashid. waa wiil ka mid ah kuwii halaaga ahaa ee dariska la ahaa. wuxuu garaacaa ninka maskiinka ee Aasiyaanka ah. Naif marka aad u xanaaqay
nin geesi ayuu ahaa wiil geesi oo aan baqin waxyaabaha uu ka xanaaqay waxa kamid ah oo ninka ugu gurmaday ninkan wuxuu leeyahay muslimiin war ninka laga qabto ninkan wuxuu ka rabo laba yaqaan uu iska garaacaya inta daroogo iyo baqti ka soo dhargay ayuu ninka miskiinka jigta ku haya dadkii masaajidka ku jiray wax ku soo leexana male ma raashidkii wala kala carara naif marka muxuu sameeyay ninkuu gartay aasawiga safka hore iskula dukada masaajidka waa nin ahlu salaada oo muslim oo salaada safka hore kula dukada aasiyada dhulkaan oo kale dadkaan meelaha ka shaqeystaa inta ku soo leexdo xiriiriya dhageyso ninka ka leexoyay maxaa galay ninka waa aasawi aasiyaan waayo maxaa galay muslim waayo aasiyaan maxay adiga masaajidka maba imaanay weliga adoo masaajid ku dukanay kuma arkay ninka masaajidku salaadahan ugu la tukaday ninka way u garaacaysaa ninka horta gacanta ka qaad ninka marka waa cabsan yahay oo nin wareersan waa moogta waaba lagula hadli karaa qof tuulada iyo ereyadan jooga adiga ku afka ku kala qaadi karaaba wax weyn la noqotay ninkii aasawiyaanka inta iska daayay ayuu wuxuu feer la soo aaday naif uu ka xoog badan yahay marka kan alkoolista labadiisa gacmood inta qabta soo nagta ugu hayay u garaacay madaxiisa dhiig ka keenay la kala qabtay dadkii masaajidkaas ku soo baxay raashid waa bax gurigoodu aaday ninkii miskiinka ahaa uu marka naif garabka soo qabtay masaajidka keenay ninkii oo la garaacay ilkaha laga tuuray oo dhiig asaga dhan waa loo dhaqdhaqay dadkii masaajidka oo dhan naif ay u duceeyeen mushkilada marka imaan doonta ninkii gurigu tigi walaalihiisu u sheegay wuxuu yiri wiilkii meeshaad joogay odagii meeshaan deganaa labadii wiil mid ka weynaa ay soo garaaceen way ku qosleen kuwa kale waa alkulistiyaal kale soo ku garaaci karaaleen ma qoorta ka jirta asaga qoorta maxay tahay oranka iska dhiciyeen anaga ma kugu tagayna dheenikaan cunuga yarka ma kugu tagayna kana weyn marka raashidka la soo garaaca weyn raashidkii marka walaalihiis waxay yiraahdeen ninka dil kow ka siideen ninka marka go'aankii u qaat muxuu rabaa inuu ka takhaluso naif sheekadii marka meesha ka dhacday habeenkii buuqii dhacay wuxuu gaaray abu naif aabihiisii naif u gaaray naif marka aabihiisi wuxuu leeyahay maxaa kuu geeya abo maxaa nimanka dadkan maxaa gacanta ula gashay dariska nahay dad xuna wax ka qabanaa male bariis wax ka qaadaa male kan wax ka qaadaa male maxaa ku filagay abo wuxuu leeyahay dhageyso abo nin muslina oo la garaacayo yaa muslimiin ku haya ma gudbi karaa waa dhimo karaa wiir abo ninka miskiinka oo salaada jawaacada nagula dukado aan ogahay ninka aan kulistaa inuu dulmi ku garaacay see uga tagi karaa wiir abo odaygu wuxuu sameeyay maxaa ku geeyay ninka hadda khatartooda oo leeyahay nimankaasaan samayn doonaan iska ilaali taxadar odaygu markuu odaygu wiilka masaajidka soo aadayo wiilkii kale iyo asaga iyo odaygu kulli way soo raacaan si wiilkan bal loo weheliyo kaligiis uusan meel cidlaa ugu helin sidii saasay ku socotay ninkii raashid ahaa wuxuu go'aansaday inuu dilo naif laakiin subax salaad kasta aabihiisii wiilkii kale masaajidka uga wada socdaan marka saddex qof ma iska celi karo dee hal qof kaligiis ninkan si kastoo intuu nagu waayay maalinta dambe jaamacadu aadaa marka naif magaaladu soo aadaa tuuladu ka soo baxaa gaariyo marka wataa magaaladu soo aadaa waa rajul shujaac waay nin geesi ah waay naif ma baqo gaariga isagoo soo wata ayuu ag istaagay gaarigiisii meesha oo gaariga agtiisa la dhigay wuu istaagay waxaa ka soo degay raashid maxaa rabtaa markaasuu ani adiga mar dhexdaas isku dhacnay waataan maaragtay iskacan qaadnay marka dee hadda dad darisaan nahay inaan bal israali garayno oo maaragtay aan rabaa gaarigayga soo raaca makaaga aan raaco wadada aan ka baxno aan meel meeshaana
aan si gaara ugu sheekaysan ninkaa marka wuxuu yidhi gaarigayga soo raac kaaga ma raacayne kiisuu baarkin geliyay kanay soo raaceen waddada geeskeeda meel ah uu ka bixiyey wuxuu yidhi aan sii soconno meesha masracada beerahaas agtooda anta war beer ma tegayuu dhahay waxaa rabta intii u sheeg maxaa dhacay aniga waxba kuuma qabo dhahay ninkaa miskiinkaa celina kaa celiyey adi haddaa wax qabtay ii sheeg maya wallaahi saas maa ninkaas hadda meesha marhaya ma ujeedaawen ninkii marka gaariga waday naif wuxuu fiiriyey darashada ninka u sheegayo ninkaa marka midiya u diyaarsan mididii inta soo bixiyo surka ka gelshi nab 2 mar ninkaan steerinkii ku fadhiyaa meelna waa fiiriyey ninkaanna toorreya u diyaarsana ninkaan dhag waa boobsiyey ilaahay amarkiis dhiig muraayadii meel kasta ninkaa meel uga baxa male dhaawiciyaa ku dhacay ninkii waa degtay waa cararay gaarigiisuu fuula u baxay ninkaa isagoo tacbaana ayuu suunkii iska soo furay albaabkii iska soo furay bannaankuu soo degay wuu dhiig baxay meesha xoogaa cidla waaye waddada geeskeedii ku dhacay naayif khalaas waa dhintay ilaahu naxariis raashidna wuu baxay jaamacaddii aa laga sugaya jaamacaddii male odagii guriga markii dambe waqtiguu soo rawaxayo male intee aaday ninkii intuu galay jaamacaddii ala wacay jaamacaddii maanta maba imaanaa lii ninkii war ninkii xaguu galay xaguu aaday marka nag meel kasta odagii iyo wiilkiisi gaari kale soo qaateen waxay soo aadeen waddadiisay ugu socdeen waxay arkeen gaarigiisii oo meel geesa yaalla wiilkiiyaa arkay 19 jirka nawaafa layidhahdaa markaasuu aabba u kaadi nawaaf naayif gaarigiisii waa kaas way ku soo leexdeen meesha gaarigii markay imaadeen gaariguu albaabka furan yahay iyo wiilkoodii naayif oo dhulka yaalla midina ay agtaallo mididii lagu dilay intoo maaragtay ninka ku dhuftay mididii ka taagan oo xoog u geliyay mididii ka taagan ninka mididii ku dhagan oo iska saaray meesha wixii oo dhan wada dhiiga wiilkii waa qaracmay allah walaalka ay meeshana u dilay odagii wuu fahmay dilkan inay ka dambeeyaan kooxdii maafiyada ah oo wiilkoodii ayaga cadaawada ka dhaxaysa odagii meel halkaasuu fadhiistay madaxu gacmaha saartay wiilkii waa barooranayaa odagii inuu dhintay wiilkuu garoobsaday uu soo istaagay odagii wuxuu yidhi dhegayso laa tatakalam waa sheekada magaceeda wiilkiisa odagu wuxuu ku leeyahay ha hadlin ha sheegin mididii uu qaaday walaalka lama dilin shiluu ku dhintay wiilkii wuxuu leeyahay aabba ma waalatay see wax ka yihi meela midiya ku taal walaalkay 2 midiya qoorta uga taalle dhagayso warkayga maqal laa tatakalam walaalkaa shilu ku dhintay huy aaba wiilkii aabba see walaalka aamus walaalkaa shilu ku dhintay meesha ku xar sheekada wiilkii wuu yaabay odayga wiilkii soo qaateen dadkii xaafadda iyo deegaanka waxaa loo sheegay inuu wiilkooda shil ku dhintay odayga waa duugay iyadoon booliiska la wicin iyadoon cid kale la wicin ninka waa duugay wiilkii marka wiilkan la dhashay nuwaaf wuu og yahay shil inaysan ahayn oo walaalkood la dilay cadaawadna ay kala dhexaysay ciddaan wuxuu la yaaban yahay marka odayga aabbaha ah sababta uu waxa kan u daboolayo maxay wuu ku soo laabta aabba wuxuu yidhahda aabba dhegayso laa tatakalam luu dhaha odag ha hadlin aaskii aa dhammaaday dadkii waa usoo tacsiyadeeyeen oday marka waxaa jira abtigooda islaanta uu odaga qabo la dhashaa jira oo wiilasha saaxiib gaara laha waa oday marka khatar waayo odaygiyaa yimid
tacsidii u yimid wixii tacsiyaday wiilkii la hadlay wuxuu yiri maxaa kugu dhacay markaasuu yiri abti waxbaan qarinayaa yiri aabahay wuxuu igu yiri laa tatakallam inta ka badan marka ma qarin karo maxaa qarinaysaa yiri isha maxaa dhacay walaalkay waa la dilay waxaan u tagnay aniga aabba isagoo toorey lagu dhuftay cid kalena ma dilinu yiri ciidan dariskeena ee faasiqiinta ee maartay dhibaatada badan ee mooriyaanta ayaa walaalkayn iyo iyaga wax ka dhaxeeya iyaga cidaan ahayn ma dilin laakiin aabahay wuxuu leeyahay shilu ku dhintay dheh aamus arkaas aniga marka maskaxdayda ka weynaado abtigii waa xanaaq odagii wax weydiiyay ma hadlaayo abtiga soo u socday wuxuu tagay saldhigga booliiska magaalada arinkaana dhacay wiilkaas shilku ku dhintay la leeyahay waa la dilay walaalkiisaas u leeyahay booliiskii ay mid guriga walaalkii waa la wareystay wixii uu arko sheegay odayga waxba ma sheegin wuu aamus booliiskii marka maxay sameeyeen waxay qabteen Rashid ilaahay amarkiis Rashid oo cabsanay qabteen darooga iyo wax caday saldhigga booliiska geeyeen su'aalihii la weydiiyay asaaba sheegay ana diloona gaarigiisa ku dhex dilay toorey laba ahaan ku dhuftay kana yeelay ahlan wa sahlan ilaahay baa ka hadalsi booliiskii ninkii waa xareen sheekadii marka ninkii marka waxa waaye reerka laga dilay dilka loo geystay dhiigga way cafin karaan wadanka Cumaan macnaa shuruucda ka mid tahay qofkii qof la dilo reerkiisa dhiiggaas way cafin karaan oo waa cafin dhigi karaan dawladdu marka xoogaa yar sanado ciqaaba iyo falka uu geystay ku sameynaysa laakiin wax kale laguma sameeyay odagii wuu baxay saldhigii booliisku wuxuu dhahay waa cafinay waa cafiyo dhiiggiisa wiilkayga soo animali waa cafiye ninka Rashid la siday waa la yaabay islaantiisii iyo wiilkiisii iyo ilma adeeradiisii iyo dadkii oo dhan waxay leeyihiin way u cafinaysaa maxaa uga baqaysaa nimankan mooriyaanta odagii marka wuxuu leeyahay anigu waa cafiye dhiigga wiilkayga ana iskala waa cafiye islaantii furaytay waa dalaaqay islaantii waa ka tagtay wiilkii uu ka tagay nimankii ilma adeeradiisa ahaa way jareen dadkii oo dhan way ku xanaaqeen kaligiisa soo aray sababta uu arka u sameeyay qof uu sheegay lama arko wiilkii 3 sano ay dawladdu xartay kadib waa la soo daayay cafiskii aan lagu soo daayay danihiisu raacay wiilkii kale islaantii uu furay reerkii wixii oo dhan waa ka wada tagay kaligiisa guriga ku soo aray Abu Naif ilaa hadda sababta uu arka u sameeyay dadku ma yaqaanaan maba ogaba shib waay haddii la weydiiyo maba ka hadlaayo oday marka wuxuu samaynayaa markii dadkii oo dhan ka kala tageen oo kaligiis soo haray 24 saacado yar oo jiifa maahane quraanu inta akhriyo ayuu wuxuu yiraahdaa ilaahayow kuwan aniga way dhibaateeyay wiilkayga dileene musiibo kale iyo dad kale yeesan ilaahayow dhibaateeyne ilaahayow dhulka la jarule ilaahayow kuwan dhulka la jar an'am iyo alaabtii wal akhiraan liijir Soomaaliya hebel an'am loo akhriin maqli jirta talka odagi quraanu inta qabsado oo ilaahay bariyo oo nimanka ku rida gacan bini aadan iyagoon ku bixin ilaahayow gacantaada ku ciqaab u dhaha saysan dhibaato kale dadka ugu geysan isagu markuu wuxuu ka baqayay laga fahmay meesha wiilkiisaan kale iyo inuu dhibaato kale hadana soo gaarto mid waaba ka tagay bogt ka kale in laga dilo ka baqay oo isaguna uu walaadeysanay nimanka niman naxay ma haddii dawladda uu ku dacweeyana dad wax badan laga cunaayo ma ahano dawladooda aabahoodii baaba dawladda ku jira odaygu soo quraan ugu waday maalinta dambe maxaa dhacay
waxaa dhacay afartoodii saddexdii wiil iyo odagii dhalay oo gaari qaatay oo dalxiis aaday ayaa gaari tareela inta qabtay ayuu masaxay dhulku ku masaxay gaari yaroo qurux badan ay wateen gaarigii tareelkii inta hoos galay ayaa dhulka lagu masaxay dhulka waa la kala garan waa hilibkooda busteeki camalaa loo sheelay ancaam waa shiishadika nimanka dhagay ka garaacda qur-aankii ninka uu ku akhriyo oday nimanka waa shilay khabarkii wuxuu yimid tuuladii waxaa la yidhi afartoodiiba waa shiilbeenaa layidhi oday alxamdulillah ilaahayow adiga aqbalay ducadayda iyagoon dad kale wax u qabsanin dhibaato kale geysanin gacantaadii aan kaa baryaa ku ciqaabto kadibaa marka wiilkiisii iyo ilma adeeradiisii iyo soo laabteenoo ninkii uu sheegay wuxuu yidhi marka aniga dhibka waxaan u diidayay wiilkayga kii hore waa iga dhintay haddaan nimankaasu ku sii adkayno waxaan ka baqay kayga kale inay dilaan dhibaato kale noo geystaan marka annagoon gacanteennii ku dilin ayaan ilaahay u bariyo yidhi waa mooryaan dowladnimo kuu sheeganaysa ilaahayaan u bariyo yidhi qur-aankaasha inta qaatay aan 24 saac ku tuuraayo gurigooda ilaahay ka baryaa inuu isagu gacantiisa ku ciqaabo dad kale inaysan saabsan tareela la dulmariye tareel dhulka lagu malaas marka runtii sheeko waxay noqotay cajiib ah oo aad looga yaqaano Cumaan qisatu la tatakallam alilada ha isku hadlin odayga adeelkiisa waay marka qisadeedii toddobaadka runtii inta ayaan kusoo gabagabeynaya hadaba arrimahaas oo kale way ka jiraan Soomaaliya reer Mooriyaana oo laga baqo oo xaafad jooga oo dadka masaakiinta dulmiya waxaasoo dhan meel kasta carabtu waa saasoo kale nin dowladnimo ku sheeganaya ilmihiisa ay sidaa yihiin fadareysan yihiin dadkii dhibaateynayaan dadku ay ka baqayaan waxaas jira laakiin odagan wuxuu yiri ilaahayaan tala saaranayna waa nala dulmiyay quraankaasa markaa naga aan maartay ilaahay ugu baryana inuu ilaahay ku ciqaabo قصص مركز قصة عجيبة هيد أذكرنا بالفكر يا ركتدينا وحيد كجنب حين نوصل قرا تطبيقات كان شنر كنا قصوي كان دار لبا يا قصص مقعدوها قصة لا تتكلم أنت يا كسوق بقبينا أنت المركز قصوي كان كل ما إنه هدي الله إنه مالك سوى شوفتون هذه كي تجي أشتاسيو نود قريب